aad ayaa u mahadsantihiin kasoo qaybgalkiina maanta fursad aad u wanaagsan ayay ii ahayd inaan maanta zoomkan ku wada hadalno. waxaan idinkula dardaarmayaa shaqada wanaagsan oo aad wadaan inaad laba laabtaan. doorashadii way bilaabatay, waxaan rabaa sida ugu dhaqsiyaha badan inay u soo gabagabowdo December bartamaheeda golaha shacabka uu naga soo gabagaboobo. waxaan idinkula dardaarmayaa oo mar labaad iyo mar saddexaad idinkugu celinaya, waxaan u baahanahay dhammaanteen shacabka Soomaaliyeed inuu idinka sugaya doorasho xor iyo xalaal ah. kursi cid loo xirayo ma jirto, kursi qof laga celinayo ma jirto. kuraastaas waa inay furan yihiin, ciddaan ku arkana tallaabo sharciyan ka qaadaya. sidoo kale ha hilmaamina, maalin kasta waa la qabsadaa qoondada dumarka boqolkiiba waa 30. ha hilmaamina, taas waa idinku adkeynaya. waxaan kaloo idinku adkeynayaa in aad bilowdaan oo ay soo gudbisaan isla cawadaba work plan-ka ama qorshaha iyo kuraasta ugu horeyso oo aad hadda diyaariseen inaad qabataan. waa ugu mahadcelinayaa Somaliland hore u bilowday, haddana ila soo wadaagtay kuraasta ay qabanayaan. sidaas oo kale ayaa idinkana idinka rabaa si lacagta aad u baahan tihiin leedinkugu soo shubo qaybta ka dhiman, qaybta ay haysatiinna leedinkula xisaabtamo oo single treasury account-kana aan ka ogaado. inaad ku noqotiin oo aad tagtiin goobihiina, kuwiina meelaha kala jooga ama Muqdisho ha joogaan, waa inay ku noqdaan goobaha codbixinta ay ka dhacayso ee siidka. waxaan sidoo kale farayaa federaalka oo ah fiid inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay u sameeyaan gudiyadoodii ay magaalooyinka ay u qaybiyaan, ay sida dhaqsiyaha uga qayb galaan. sidoo kale waxaan farayaa guddiga xalinta khilaafaadka in ay si dhow ula socdaan goobahaasna ay sida ugu dhaqsiyaha badan u tagaan. sidoo kalena wixii ka bilowda Jimcada ama Sabtiga waxaan diyaariyay inaan aado goobaha ay doorashada ku dhacayso.